anigoo ku hadlaaya afka ciidanka booliiska Soomaaliya oo ah hooyadii ciidamada qalabka sida waxaan maanta halkaan hambalyo uga dirayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda xaasaskooda agoontooda iyo caruurtoodaba salaan kadib hooyo ma jecla inay barbaariso wiil wax laga sheego ma jecla annagu maadaama aan nahay hooyadii ciidamada qalabka siday waxaan jecelnahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed noqdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee caalamka midka ugu fiican waxaan jecelnahay waxaan soo barbaarinay inay noqdaan wax miro dhala ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maaha wax laga maarmo qaranna ma jiri karo haddaan xoogga dalka una ka jirin waxa taas marqaati ka noqon kara muddo 80 casho ka hor maalintii calanka Soomaaliya la saaray ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo dhidid taagay 12 abriil iyo 1 luulyo inta u dhaxaysa bal qof walba xisaabi sababta loo sameeyay waxay ahayd oo calanka Soomaaliya ugu hormareen waxay ahayd booliisada wuxuu iskala shaqeyn jiray moogtaa cid kasta meesha joogta marka sababta loo aas-aasay waxay ahayd oo looga hormariyay 80 casho iyo 79 casho xilli aan isleeyahay meelahaas ku jirtaa inaan xoog dal la'aan dal calan lahaan karin marka haddii calankii halkaas idin ku dhagan yahay mar haddaan xooggii dalka Soomaaliyeed tihiin waxaan idinka codsanaynaa haddaan nahay hooyadii ciidamada qalabka siday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mid inuu noqdo mid lagu daydo awoodiisa anshaxiisa iyo borotokoolka ciidan sida loo ilaalin lahaa looguna adeegi lahay ummadda la difaacayo ugu dambeyntii waxaan hambalyo gaar u dirayaa guutada shanaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka shaqeysa qaybta 27aad guutada shanaad ayaan u hambalyeynayaa waxaan dhihi lahaa anoo warkaygii soo gabagabeynaya waxaan hambalyo gaar iga mudateen guutada shanaad in aadan ka bixinaha goobihii difaaca oo aan nalama diiwaan gelin iyo aanan idaacadda ka maqal aad u mahadsantiin waxaan leenahay sidaas oo kale u dhabar adayga waxaan idin leenahay sida aad cadawga uga gacan sareysaan uga gacan sareeya waxaan idin leenahay dhiganaha waxaan idin leenahay walaalayaalow adinka ayaa dalka la rabaa inaad ku soo dambaashaan nabad wax la cuno iyo wax la xirto iyo wax lagu faanaana nabad ay ka dambeeyaan nabaduna gacantiina ay ku jirtaa marka yaana wax badan isweydiinin inta nabadu sidaan tahay waa mahadsantiin